asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soo dhawaada dhammaantiin meel walba aad joogtiin iyo waqti walba iyo xilli walba ay ku tahay kusoo dhawo barteena MK Skills 1. بتعلمني وبتنسى يا بابا اللي قلته، وانت القدوة يا بابا وانت المثل الأعلى. ما تزعل مني يا بابا يا عيوني وأغلى. marka la soo dhawo waxaan sidoo kale haddii aad tahay dadka nagu cusub hadda nagu soo biiraan inay kusoo dhawo bartaan, waxaanu soo gelinaa waxyaabaha la xiriira forex-ka iyo online market-kiska. sidaa daraadeed maalin walba waxaadana waxaan halkan muuqaal soo gelinaa aan uga falanqeynayno waxaa la yiraahdaa fikirkeena iyo isbuucaas soo socda sidaan u aragno suuqa. sidaas daraadeed marka haddii aad u aragtid inay wax un kaa bedeli doonto mise faa'iido aad u aragtid mise aad nagula jirtid businesska forex trading qayb aad ka tahay, maalin walba waxaad halkan ka heli kartaa oo axada waxaa la yiraahdo falanqeynta isbuuclaha ah. sidaa daraadeed waa nagu soo biiri kartaa, waa kusoo dhaweyneynaa, gacmo furan ayaana kugu soo dhaweyneynaa. marka la isku soo noqdo wanaagsan dhammaantiin meel walba aad joogtiin, waxaa kusoo biiri kartiin sidoo kale qaybta telegramka oo halkaas maaragtay setup iyo afkaar degdeg wixii u baahan oo kale aynu soo gelino. asagana waxaan idin dhigi doonaa descriptionka ayaa idin dhigi doonaa linkiga, halkaas ayaa kasoo raaci kartiin. soo dhawaada dhammaantiin. maanta waa axad, maxaa la yiraahdaa beri oo isniina caawa 6 saac markay noqoto ayuu suuqu furmi doonaa hadduu eebba awoodda la idmo. laakiin sidaa ogsoontiin anaguba waxaanu trade garaynaa beri wixii London session loo gaaro. sidaa daraadeed laakiin maanta oo kale axada waxaanu sameynaa isku diyaarin suuqa aan isku diyaarinayno iyo maaragtay meelo badan oo falanqeynteena inaan kusii eegno. sidaa daraadeed haddii aad tahay qof sidaas oo kale asagana falanqeyn sameeya maalinka axadda iyo suuqa gebi ahaanba isha soo wada mariya, maadaama aad new week cusub aad isku diyaarinaysid ay tahay in maaragtay aad macluumaad badan aad usii diyaar garoodid. soo marka insha allah waxaynu maanta halkan ku eegi doonaa dhowr lacagood falanqeyntooda. haddii aad maaragtay lacagaha ugu muhiimsan oo inta badan fursad aan ka raadino oo ani ahaanteeda maaragtay listiga igu jira ayaan halkan soo dhigi doonaa. soo waa ku kala duwanaan karnaa, laakiin waxaa waaye muhiimadeedu waxaa waaye dadka aan isku nidaamka nahay inay halkan maaragtay ay ku dareemaan in maaragtay nidaamkooda ay waxay ku dabaqi karaan ay helaan. marka soo dhawaada dhammaantiin mar kale. waxaan saa ogsoontiinba ka bilownaa falanqeynteena lacagta DXY maadaama ay tahay wax aan uga qiyaas qaadano lacagaha kale ii sheeg oo doolarka la socdo o dhan. doolarkuna uu yahay lacagta ugu awoodda badan ee suuqa maanta maaragtay go-aan looga sii gaari karo. hadday xun tahay hadday fiican tahayba mar walba fursad ayaanu ka dhex abuurnaa, maadaama uu suuqa forex-ka yahay inaad buy iyo sell maanta dhan wax ku kala heysid. uusan ahayn sida suuqyada qaar inaad marka hore wax soo iibsatid si aad wax iskaga sii iibsatid ay qasab kugu tahay ahayn. soo dhawaada. haddana waxaanu eegi doonaa lacagta DXY maadaama doolarkan dhan uu yahay lacagta maaragtay looga qiyaas qaato. haddaba DXY saa ujeediin last week waan falanqeynay, walow fursado yar ay bixisay laakiin hadda leh waxaa la yiraahdaa informationkeeda waa kasii daba dharagsantihiin. hadda waxaan taaganahay waa 4 hourka. waxaa ujeediin 4 hourkeeda in maaragtay weli maaragtay suuq abtaran yahay, korkii ugu koreeyna uu halkan yahay oo 4 hourkan haddaa ujeedid higher highgiisa ugu koreeyay uu halkan yahay, higher lowgiisina inuu yahay meeshan oo ah meesha aan isleenahay waa la tagi karaa suuqa inuu ayadana halkan ay tahay ayaan ujeednaa. korkii kasii koreeyna asaguna waa kan, waxaa ujeedaa 4 hourkii kale oo kasii koreeyo oo higher high ah asagana waa kan, kankii kasii hooseeyeyna waa kana asagana waa kana hoostan waaye. marka aragtay suuqu inuu korkaas iyo hoostaas ku sameeyey jihadeeda guud oo 4 hourka sidaas ay kugu caddahay, waxaa sameyn kartaa hoos ayaa uu sii degi kartaa 1 hourkaadaad sii tagaysaa maadaama ay sheekadan 4 hourka ay waqti dheer qaadanayso, maadaama adiguna aad tahay inaad sheeg laga yaabo aad challenge ku jirtid oo akooma haysatid mise aad daily trader aad si maalinla ah bb soo ceyrinaysid. haddana waxaa ujeedaa halkan in sheeg waxa la yiraahdaa 1 hour uu ku jiro oo lower low ah oo kan kasoo horjeedo oo suuqa down trend uu yahay.
inuu halkan uu kasoo jeedo. So inuu anaga noo wanaagsan yahayna taas ayaa muhiim noo ah, maadaama trendiga ha weynaado mise ha yaraado uu trendiga yarka uu fursad ina siinayo ayaa muhiimadeena ah. So maadaama si aan fursad u hadin, laakiin haddii trendigan guud keliya uu jiro fursad si aa u heshid waa adag tahay, sababto hal mar ayo entry bixinayn kuwa hoosena saa uga heshid waa kugu adkaanaysa. So halkan saa ujeediin waxaa ujeediin inuu maaragtay uu suuq 1 hour ka down trend official uu asagana ku jiro. and then waxaa sameynaysaa kii ugu hooseyna uu kan yahay baa ujeedaa oo lower lowgiisa ugu hoosey. and then waxaa ujeedaa halkan haddeetaan meeshaan la tagay in halkan hayadana ay noqon karto meel maaragtay la imaan karo oo aan ka rabno in kadib markaas aan go-aan kasii qaadan inuu suuq korkii uu sii aado. hadduu korkaasna si aan ku helayna ayadana waa kaa dabageyn doonaa, laakiin halkan aan kaa dabageeyo. So halkan marka horka waxaa ujeedaa meeshaan liquidity already waa ka heshay oo halkan ay liquidity ku jira haddaad 30 daqiiqi aad u tagtid, iyo halkan kalena mid kalena waa kana. So let me check, waa kana waa kan liquidity halkan ayuu ku jira. and then waxaa ujeedaa suuqan halkan kore inuu tagay, mid kale xitaa halkan ayuu ku jira liquidity kale oo yar oo kii hadda aan isleena waaba mid kala qaaday. waa kan and then waxaa ujeedaa suuqan counter trendiga ku socday oo higher high iyo higher low ahaa, korkii iyo hooskii oo halkan ahaa in hoostan lasoo jebiyey ayaa ujeedaa. and then is good suuq inuu halkan haddeetaan korkan uu socdo uu ilaa aagan ku dhowaado oo zoonkenan kore ah mise zoonkan yariiska oo 30 daqiiqaba ha ahaado inuu tago asagana waa good, waa inuu wanaagsan yahay. walaa halkan markuu tago oo all the way maaragtay suuqu sidaan uu usoo daato waa wax macquul ah oo meesha ku jira oo aan saan rajeynaynaa. ilaa beri London session ayaan sugaynaa. haddii kale ay noqon weydo all the way intuu kor socdo uu bartaan tago asagana waa sugaynaa, laakiin insha Allah confirmationkiisa waxaan ku arki doonaa markii counter trendigu dhamaado ayaan eegi doonaa. so in all the way asagana dhoonkaas uu tago ayaan ka rajeyn doonaa waxa la yiraahdo isha DXY. meeshan kale markuu tago hayadana waxaad sugi doontaa oo kala macaamili doontaa inay go-aanka ay noqon doonto wax kiya meeshan laga noqonayo lama hubo, in laga sii soconayo lama hubo. so laakiin waxaa ku caddeyn doona waxaa waaye suuq markuu halkan istaago hadduu ku istaago uu soo noqdo trend bilaabo 1 hour 30 daqiiqo midku raba ahaado, it means inuu kor u sii socon doono. laakiin haddii meeshan lasii jebiyo oo hoostan laga hoos maro trendi kalena suuqu bilaabo, it means hayadana waxay noqonaysaa in suuqu maaragtay down trend uu ku sii soconayo. trendigan haddeetaan socdo haddii aan la jebinin uu sii dhaafo suuqaas sidaas ayuu seel kusii ahaan doonaa. so DXY na saas ayaana ka rajeyn doonaa in all the way horta meeshaan lasoo tasti garayn doono. waana arki doonaa ilaa isbuuca dambe falanqeynteena dambena waa ku eegi doonaa. marka lacagaha uga faa'iideysan karno waxaa ka mid ah Euro USD waa bilcagsiga DXY, maadaama aan DXY falanqeynteeda hadda ku siiyey ayadana waxba kama duwana. forward haddaad tagtid isku sii bay kuu sheegaysaa, 1 hour haddaad tagtid isku sii bay kuu sheegaysaa. wax maaragtay big difference u dhexeeya labadooda ma jiraan. hayadana meesha aan intriga ka sugaynay DXY bilcagsigeeda kala waaye oo waxaa sugaynaa hayadan insha Allah in meeshaan maaragtay oo supply-gan hadda suuqa uu ka kacay in halkan all the way la yimaado waa optionka koowaad aan sugayno oo halkan sidaas loo yimaado. and then all the way up la aado oo ah meeshaan target gareynayno waxa la yiraahdo zoonka naga soo horjeeda oo supply-ga ah. waa kan oo ah halkan meeshaan target gareyn doono ilaa korkaas. hadday noqon weydo waxaan sameynaynaa intriga halkan uu naga siin waayo hayadana waxaa macquul oo kale ka ah in meeshaan haddeertan ay marayso 30 daqiiqadii intaa usii degtid aad ka aragtid suuqa haddii laga sii dhammaynayo in hayadan aa kala macaamiisho. meeshaan supply yar ayaa ku jira isagana waa kan 30 daqiiqa all the way. hayadana waa qiimeyn kartaa ilaa beri subaxdii hore markii meeshaan hoosta la imaado sida suuqa uu maaragtay confirmationkaada kugu siiyo counter trendiga dhameeyo. and then kan lisa buyga koowaad uu xirmo, kan labaad oo buyga openka furmo oo kii hore oo korkiisa jibiyo all the way asagana sidaas ayaan korkaas ugu sii raaci doonaa. mar walbana waa ku sheeg gidaarka kugu soo sokeeya ayaa
TB-gaada koowaad ka dhigaysaa oo ah midkaan halkaan kale kaa xigo kale. So and then wixii intaas ka dambeeya open ayaad ka dhigaysaa, laakiin TB koowaad intaas ama 90% xiro ama 80 xiro ama 70 xiro, yacni qof walba maskaxdiisa iyo caqligiisa ay ku xiran tahay. wixii intaa ka dambeeyana intaas kale asaga ayaa la rabaa qofku inuu maaragtay uu la macaamilo oo trade-ka ama si haysta ama sii daayo. marka USD ayadana sidaas ayaan ka filan doonaa hadduu eebba awoodda la ilmo. sidoo kale waxaa listigii iigu jira AUD USD, ayaduna waa isku cagsi, waxba ma ku kala duwana, keliya ayadana waxaa waaye waxaa sugi doonaa hadduu eebba awoodda la ilmo in halkaan ay timaado maaragtay isheeg waxaa la yidhaahdo AUD USD oo halkan counter isheeg waxaa ku jiro oo ah waxaa ku jiro liquidity-gan in lasoo qaado ayaa noo sugi doonaa ilaa iyo beri. and then liquidity-gan marka lasoo qaado waxaan sugayaa inay all the way downkan timaado, and then sidaas ay ayaduna ay u kici doonta ayaan ka sugi doonaa hadduu allah awoodda la idmo. insha allah tareedyada isbuucan waxaa u badan tahay inaan kusoo diro waxa la yidhaahdo telegramka. soo tag bartaas iyo telegramka waxaa ka heli doontaa isheeg isbuucyadan dhan tareedyadan qaadan doona waa soo gelin doonaa, maadaama aan isbuucan aan laga yaabo inaan waqti haayo oo free aan ahay inta badan. sidaas lala socdo iyo fursad haddii aad qof challenge ku jira tahay mise akooma rabo inuu wax kusii faa'iidaysto. so insha allah isbuucyadan waa tareedyada waa soo diri doonaa dhammaantood, halkaas ayaan soo gelin doonaa. ka faa'iidaysayeysa ku dhaafin, sidaasna la soco. maxaa la yidhaahdaa maadaama aan isbuucan saa idiin sheegay aan free ahay oo inta badan aan xaleeli doono inaan anytime aad trade hela aan soo gelin doono hadduu eebba awoodda la ilmo. okay, trade kale oo inoogu xigo waxaa waaye JJ last week maasha allah fursad fiican baa jirtay ay bixisay. waa kana trendingan yarkaa u ahaa tobanaan markaan tagno si aan shaxalka guud u aragno. meeshaan ay ahayd, meelahan ayaa trade ka jiray, maasha allah fiican buu ahaa. dhowr trade baa jiray, laakiin trade-kan wax yaroo faninnimo leh buu watay oo ahayd intuu trade-kina dhaafay inaan xilli kale anaguna cayrino aan ka helnay. so waa kan ah trade-kan bartaan ayuu uu ka ahaa waxa la yiraahdo complete waa kan. and then meesha markii la imaado halkaan ay trade-ka meeshii ka gelista oo lahayd waxaa ujeedaa kandhaladan oo seelka ku socda markuu dhamaaday kaas saddexaad oo buy ahaa ayuu ahaa kandhalka ka gelista lahaa oo suuqa sida saxda ku fulin lahaa orderkaada, maadaama labadan buy-ga markay xirmeen oo kan caad iska ahaa kan uu kusii dul xirmay. and then kan meesha uu ku xirmay xilli waxay ahayd isheeg maaragtay 3 habeenimo. so qof trade xilligaas 3 habeenimo geli karay waa adag tahay oo maaragtay waqtiyadan trade. so trade-ka xilligan halkaas ugu dhaafay waana dhaafay ilaa wuxuu socday 3 habeenimo ilaa 4. so subaxdii uu maaragtay aan ishaleelnaane markii 10 meelahaas 10 si kale trade-kan kumaan sii qaadanin, asagana wax kale ma ahayn. waxay ahayd kandhalkan buy-ga ah ayaa xilligii 11 miyaa mise 11 oo subaxnimo barqadii 5 saac sida u taqaanin ayuu xirmo kandhalkan buy-ga. and then kan kale oo buy-ga furmayay afkiisaan kore markuu jibiyey trade kale ayaa sidaas uga dhashay. so halkaas waa trade oo riskigiisana watay oo maaragtay oo kii ahaa, laakiin waxaa ku qiimeynaysaa markaan zoomkan hoose kuma qiimeynaysid stop losskaada. stop losskaada markaan wuxuu yahay kandhalkan kale waa kandhalkan hadda buy-ga oo xirmay. kan haddii la isla soo dhaafo it means all the way downkan hoos u soo taabanaya, so wax dambe rajo badan aa kaga qabtin male. so meeshaan wax aa u sii dhaafi kartid 27kaas ma jiraan. so marka qaar 27 bib JJ waa qasab waa ku siinaysaa, 30 bib way ku gaarsiin kartaa, laakiin waxaa la rabaa inaad lotkaada yaraysid markaas oo kale isheeg aad manage garintaada aad sarraysiisid. so marba uu trade-ku uu stop losska kugu badiyo caqliyan inaad ku dartid waa. so meeshaan ahayd meeshii marka aniga aan uga baxay. so 45 bib saasaan uga har halkan. so zoonkan yarkaa oo maaragtay meesha ku jira asagana jiray aan la ignore gareyn karin. so halkaan ahayd meeshii waxaan aragnay, laakiin kan kalena asaga laftigiisa ugu jiray, laakiin mar walba zoonka hore ayuu suuqa reaction ka sameeya. so suuqa laba zoon hadday isaan camal isku ka dhawaadaan kana waa saxan yahay kana waa saxan. hadda waxaa ku diidi kartid male sababtoo ah kan 1 hourkiisa waa lasoo dhaafay hoostan lasoo jibiyey,
kan kalena hoostiisa waa jibi, kan dhalo xoogna waa ka dhamaaday. Kanna sidoo kale kandhalkan weynka haddaad kala jebisida 30 daqiiqo tagtid waxaa arkaysaa in asagana 2 kandhal iyo ka badan yihiin. So 2 kandhal meesha ku aragtid oo opposite zone kana la jebiyey, so waa supply zone, waxaa ku diidi kartid male oo suuq sidaas ayuu kuu sheegay. So halkaasna sidaas ayay ahayd. Marka meeshaan 45 bib ayaan uga haray, laakiin all the way halkan ilaayo wuxuu gaaray waxaa la yiraahdaa 140 130, laakiin mar walba waxaa ka muhiimsan 140 kaas qaban leed 40 bib intaa qabatay aa manage gareysatay oo maaragtay akoon qaadana wax ku dari kartid. So markaas ayay dhadhan ku yeelanaysaa baash oo xamaasad iyo maaragtay qof oo dadaalayna aad ku dareemaysaa. So JJ ayadan sidaas ayay isbuuca ay ahayd. JBB card ayadan hadda u guda galno last week lacagtan ayadan falaqiinteena ku jirtay. So hay'adda laftigeeda trade kale ku jiray oo meelahan ahaa. So I think in hadda falaqiinta isbuuci hore ku noqotid arki kartid. Sidii sheegayba meeshaan supply-gan oo break lagu sameeyo xogaa la jebiyey ayaa jiray, and then hoostan ayaa suuqa uu soo sameeyey oo maaragtay zone-kan kasoo horeeyay ayaa la jebiyey. So all the way wuxuu bilaabay down trend oo saa u jeedid waatan hoos noqosho hoos kale noqosho hoos kale noqosho hoos kale. So and then hadda intaas gaarin trade-ka aan ku sheegay asaga laftigiisa meelahan uu ahaa halkan ayay ahayd oo zone-ka laynoo tagay. Halkan ayay ahayd waa kana kandhalkan ay waa wixii tagay. So opposite zone-kan kasoo horeeyay ugu jibi, and then uu ku noqday kandhalkan meesha asagana xilli dhexe ahayd, laakiin xilli macquul qofku waa kasoo gaari karay. So waxay ahayd asagana aawe waa kan xilligan waxay ahayd subaxdii habeenkii 3 saac I think camal saas ahayd subaxnimo. Xilligaas 2 saac 3 saac dadka qaar waa soo gali karaan, waa ma adka, laakiin intooda badan London station ilaa 14 meelaas camal isku soo beegaan dadka. So kandhalkan haddaa ka geliyeed okay xilligaas saacideyn kartid subaxdii 3 saac meelahaas. So qofkan xilligaas heli karin dadka qaar intooda badan waxaan ku bees gareeyaa oo saaxiibadeeda ah oo qaarkood sideedoo kale ahaa oo yacni laga yaabo inay xiisad aadaan maaragtay ardaynimo u dheer tahay. So qofku waa adag tahay mar adoo xiisad jiro trade-yada qaar noocaas isku diyaariyaan aad ayay u xun tahay. So trade-kan markuu halkan meeshan soo jibiyey kan ayuu ahaa wixii ku noqday oo halkan tagay, and then 3 galabnimo markay tahay maaragtay 3 pm halkan ayuu seelkiisu ahaa. Waa kana kan ayuu dhamaaday oo maaragtay 2 duurnimo kana waa furmay, and then opposite zone-kiisa intuu jibinayo bas ayaa sugi lahayd halkaas ayaa ka galay. Stop loss kaadana kan ayaa ku beer gelin lahayd oo ah 16 bs, and then meesha target gareynaysidna halkan waa all the way down kan all the way down kan. So hoos uu dhaafayaa waa iska fiiqiyo badan tahay JBB dhan lacag ay la socoto. So meeshaan ayaa meeshii looga arki karay. So ilaa all the way down kaas ayuu sii aaday, laakiin intaas oo dhan wax karanti u weysid lacagaha qaar sida AUD USD iyo USD oo kala ma. So USD AUD USD waxa ku soo aragtid wax badan bay ka bedeli doontaa in lacagaha kale ku dhaqanto. So JBB oo kala xamaasadeeda badan waa orod badan tahay meelahan oo kala target garee mar walba maaragtay targetyada ku soo horeeyay samee. Aydan 42 bib ahayd 20 kamida markii u horeysay oo TB-gaada koobaad ahaado oo meelahan ah, and then 20 kaas kalena manage garee oo maaragtay caqliyan ku dar risk management. So manage gareynta dhan lagu sheegayo waa inaad caqli yar ku dartid oo trade-ka ama inta ugu badan taa xirata inta kale sii deysid si biri kamaal aad targetkaas u sii gaartid aad dhahdo meeshan waa ku dhiirina inaad maaragtay aan gaaro. So haddii laakiin 20 kan markii oo dhaco wixii dhan wada xiratid waxay noqonaysaa xoogaa inaad maaragtay aad isheeg aad cabsi weli kugu jirto aad go'aan badan qaadan kara. So laakiin 70 xiro 30 kalena 20 kale ah sii deyso marka ma fahanto mar walba sidaas ku dhaqan sidaas samee. So hadda maxaa AUD JBB maaragtay kaad ka macquul ah. JBB kaad wax kale kama macquul aha, still fursad kale ayaanu ka sii sugaynaa hadduu alla idmo. meeshan hadeertaan ay timid reaction-ka ka sameysay si fiican uga sii daadatay hay'ada xitaa trade kale ee halkaan ahayd. So inaan ku dhaho trade bay maanta dhan oo trade aan ku soo dhacay
xoogaa xamaasad bay kugu kicinaysaa, waxba ma kuu siyaadinayso. So laakiin tareedyo badan baa jira ilaa iyo 5 6 7 8 iska gaarayay. So kuma xirna bibis badan ma qabano oo 60 bibis wax ka badan tareedka ma ciirno. So 30 bib 25 bib marmarka qaar baan qabanaa, 20 maraa qabanaa. So 15 bibis haddii ay nadiif tahay percentage badanaa ka samayn karta. akoonka haysidid ba hayso percentage fiican oo akoonkaada u qalmo waa ka samaynaysaa. So waxay marka ku xiran tahay tareedka sa u manage garisid iyo intaad wax ka qabatid percentage. So ilaa hadda hayadana waxaan sugi doonaa in halkan ay ku noqoto oo maaragtay kanalkan baaga. So andan biri waxaan sugaynaa ilaa meelahan markay tagto si reactionka uga samayso oo kandaliskan hadda meeshan ku abuurmaya ilaa caawa iyo saas noqon doono afka iskula jiro sida lagu xaliya ayaan arki doonaa. andan kadibna all the way dhoonkaas ayaan soo aadi doonaa. So lana soconaan TB-geena koowaad meelahan ka dhigi doono oo ah 40kaas bib. sababtoo wax ka badan intaas waa extra, waa aqliyan iyo xariiftan baan ka dhigi doonaa, laakiin halkaas ayaan uga hari doonaa. hayadan sidaas ogaada. sidoo kale waxaa listiga inoogu jira JBB Euro JBB Euro JBB waa all the way up train. hayad isku daha ma lahan, jihadeedu waa caddahay. maxaa la yiraahdaa waxaan kaliya aan sugnaa waa meeshaan haddeertaan waxa ka socdo ah 30 daqiiqo hadaa hoos hadaa u tagno waxaan halkan ka sugnaa waa in go-aan meeshaan laka siiyo oo liquidity waxba abuurmaayo saad ujeedid ilaa hoostan inuu suuqu intuu yimaado ilaa biri uu halkan yimaado uu kor ka sii kaco. haddii taas noqon weydane waxaan samayn doonaa all the way hoostan suuqu sii jabiyo ayaan arki doonaa. laakiin hayada saadaalin doono in halkan inta la yimaado all the way korkaas lasii aadi doona ayaan rajeyn doonaa. sidaas ayaana farsaxanka suuqa uga jeednaa oo waxaa ujeedaa korkan kan inuu fiiqan kala sii baxay laakiin ma shaqeynin, laakiin hoostan ayuu samaystay. so it's good inuu halkan marka reaction fiican uu ka dhici doono maadaama horey suuqa halkan loo yimid oo cabaarna meel ku noqonayso oo eg tahay. Eurocard ayadana oo lacagaha qaarkood intooda badan fursado badan ay isbuucan bixiyeen, laakiin Eurocard ayadana waxay la micno tahay waxa la yiraahdo JBB card iyo Eurocard same waxay ku kala duwan yihiin male. kaliya waa laba lacagood bay kala yihiin, intaas ayaa difference u dhexeeya. so ayadan halkan ayaan sugaynaa inay tagto. hadda halkan ayuu suuqu marhayaa ilaa biri inuu halkan tago London station ayaan sugaynaa, and then all the way inuu halkan soo aado ayaan sugaynaa. insha Allah wixii confirmation iyo wixii ready noqdo isbuucan waa soo diri doonaa hadduu eebaa awood leedmo. maybe isniinta inuu dhaqdhaqaaq badan iyo isdiyaar uu dhaco. so New York session xilligeeda inta badan soo dira ayaan isku dayi doonaa maadaama London session ay noqonayso wax isdiyaar caawa kali isku diyaarin karin saas leeyahay lacagaa dhan. so xilliga New York session isku beeg xilliga waqtigaas Telegram-ka tag isha ku haya trade ayaan soo dhigi doonaa insha Allah. marka Eurocard halkaas ayaan ayadana uga tagnay. NCD USD listiga inaguma jirto, laakiin wixii update ka noqdo waa arki doonaa. so gold is good waa lacag dad badan ee maaragtay asxaabta kamid ah trade gareeyaan, laakiin inta badan waa maadaama ay u baahan tahay gold kaligeed inaa ama trade gareysid inta bayriska kale iska xirtid, ama maadaama uu maaragtay kan stop losskiisa ka duwan yahay, ka xamaasad badan yahay, ka qaalisan yahay oo maaragtay u baahan tahay inaad maaragtay haddii aad faa'iido samaysid faa'iido badan samaynaysid, haddaa khasaare gashidna khasaare badan galaysid, uu maaragtay ka system duwan yahay. ayadana laakiin falanqeyntana waa ku darnaa, waxaan sameynaa si saaxiibada trade gareey uga faa'iidaystaan. okay goldi ayada isagana isku daa malaan all the way up train waa korkaana ugu koreeyo saa hadda ujeedid korkaana ugu koreeyo korka koreeyo ma jiro. so powerkiisa waxaa ujeedaa high inuu yahay 1 hourkiisa u socdaa hadda joogno. so isku daa kala male 1 hourkiisa high markuu yahay high low kala haystaa, and then high kalena waa kana high kalena waa kan high kalena waa kan. so all the way gold waxaan sugaynaa ilaa biri inuu meelahan ay ahaato meel uu imaan karo. waan imaan doonaa insha Allah saan rajeynayno. suuqu mar walba maaragtay space furan ayuu soo buuxiyaa. so
ilaa halkaana inay maaragtay liquidity wax halkan laga soo qaado oo maaragtay all the way downkan ah ayaan rajeyn doonaa si uu suuqa liquidity markuu sameeyo uu move kale uu dhaqaaqa uu sameeyo. so halkan ayaan ka sugi doonaa ilaa iyo isagana London session halkan. so all the way hadduu uu maaragtay halkan maaragtay confirmation iyo systemkeena inoo qaabilo halkan ayaan ka trade garin doonaa. aysan ahayn meeshan kale ayaa waxay noqon kartaa meel kale oo suuqa la geyn karo oo maaragtay supply ah uu soo testgareyn karo oo u baahan in ayadana space uu soo xiro maadaama halkaas dhan ay ku jirto ayadana maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg imbalance. so suuqa dhan waa sugaynaa siduu asaga uu ruliskeena u waafaqa ayaanu ku trade garin doonaa. wixii intaas ka baxsanne waxaynu nagu noqon doontaa khaladaad iyo dembi aan anagu nafteena ka galno. so hayadana waa iska ilaalin doonaa. intaan insha allah muuqaal sidaan oo kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo barwaaqo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.